dhegeystayaal nagula soo dhawaada mar kale iyo barnaamij aan uga hadlayno ciyaartii xiisaha lahayd ee Switzerland iyo Talyaaniga dhex martay. barnaamijkaas waxaa ila falanqeyn doono Cabdi Cabdullaahi Kadaloob. soo sax ma saaxiib kusoo dhawaada barnaamijka mar kale. ciyaartan naguna soo dhaweeya ciyaaraha falanqeyntii waxaas waan kasoo qayb gelinaa. hadda kadib inaad nagu soo dhaweysaan youtube-keena noo share garaysaan, laagna nagu saacidaan, subscribe-na noo saartaan. waa mahadsantihiin. sida uu sheegay subscribe-ta waa caawis, like-da waa dhiirigelin, commentigana fikirkiina ayaad kula wadaagi doontaan. kusoo dhawaada ciyaarta mar kale sportan falanqeynta. Cabdi, sidoo aragtaa ciyaarta xalay Talyaaniga iyo dhex martay iyo Switzerland? walaal horta ciyaarta aad ay u kululeed kuudhi. Talyaaniga intuuna ciyaarta uu iska dilin ciyaarta gadaal isugu soo adkaatay. marka hore naqad ka dhaxay waxbaa laga haystay, laakiin marka dambe uu iska bedelay, macalinka bedel fiican uu sameeyey. ciyaarta waqtigay soo noqolayeen rigoorada yeeleen, rigooradan way ka faa'iideysan waayeen. waatu wariyaha dhahay maanago baaji oo soo xasuus ugu daawano meel walba uu joogo ciyaartan waatu dhahay waa aragtida madigaba. marka ma dhihi karnaa Talyaaniga kaalinta koowaad kuma soo bixi karo maadaama wali uu hogaaminayo group? wallaahi waa la dhihi karaa inuu Talyaaniga kusoo baxo, waa macquul asaad meesha groupka uu sareeyo weli, laakiin kulanka ugu dambeeya inuu badsho oo macnaha ka fogaado biramadu kusoo baxo waa muhiim. asagay muhiim u tahay haddii kale sumcadda darrada oo 4 sano ka hor ku dhacda oo ka cararamo inuu group kusoo baxo uu ku qasbaya number 1. okay, haddaan dul istaagno xulkan hadda difaacanayo European champion, maalmahan dambena laga yaabanaa unbeaten-ka haystay, rikoorada badan jebinayay. ma dhihi karnaa waa xul u diyaarsan inay ciyaaraha adduunka ee Qatar 2022 ka qayb galaan? way u diyaarsan yihiin macnaha markii la fiirsho awood ahaan iyo tay ahaan iyo da'yarta ciyaartooyda ay wataan, iyo markii la fiiriyo macalinkooda iyo isfahansanaanshoda iyo sida qaabka isula maamulayaan. waa la dhihi karaa way kasoo bixi karaan World Cup soo socdo oo Qatar, wayna ka muuqan karaan meel fiicanna way ka gaari karaan. Talyaaniga lama yasi karo sidiisaba. okay, xulkan difaacanayo koobka qaaradda Yurub inuu heerkan soo gaaro oo xaaladda ay ku adkaato asoo gruupka dhibco badan ku hogaaminayay, macnaha ma la dhihi karaa isma uu yasaayay gruupka uu ka tirsan way? ma la dhihi karo laakiin macnaha marmaraa waxaa jiro waxyaaba oo la fulin oo duf liira kubadda ay kamid tahay. walow kubadda sidoo hore aysan ahayn kubaday kooxo yaraa la yasi jira ama laga awood badnaa jiray ay isbedeleen waqtiyada hadda dambe 5 sano ugu dambeysay isbedeleen kubaddana la isla wada bartay. ma la dhihi karo laakiin haddana Talyaaniga weli waa Talyaanigiisa isaga oo macnaha kooxo awood leh, magaca sumcad iyo kule oo adduunka laga baqo oona kamid yahay, oonan la yeelsan karin. natiijo walbana uu ka dhalaali karayaa marka ciyaartooydii tayadooda la isu fiirsho. okay, haddaan dul istaagno rigooradii Jorginho, macnaha maxaa laga dhayalsan karay rajada Talyaaniga? macnaha rigoorada Talyaaniga oo Jorginho tuuraya wuu Jorginho rigooristayahay, macnaha oo haddana kulamada ugu dambeeyay oo cunay ayagaa la rabay inay ka tastaan macnaha ama bedel labaad ama qof labaad oo tuuro ama qof saddexaad oo tuuro inay u sameeyaan plan B plan C u sameeyaan. laakiin plan eegoodii ku dhaganaan ciyaartana barasharka iyo dagaalkii qarrac badan waliba qad ka dhaxay ciyaarta Talyaaniga Switzerland aad looga haystay. ma fahantay barasharka ugu badnaan asagoo saaraa xal rigoorada in laga wareejiyo way ku fiicneen xalay oo qof kale oo tuuro. okay, Manzini marka muxuu u baahan yahay inuu la soo shirtago ciyaartiisa ugu dambeysay ee uu safrayo Northern Ireland? inay awoodooda ugu dambeysay soo bandhigaan. macnaha ma la dhihi kara shakhsi saana xidig hadda Talyaani oo macnaha markii la fiirshay xidigii waaweynaayo xilliga la yaqiino kala bariga ma wataa, laakiin waa team work. waa team isla dheelaayo isla badinaayo koob weyn isla soo qaado Euro oo muddo intaas sano isla moogaayeen aad u moogaayeen. marka kulanka ugu dambeeyay final matchkooda awoodooda ay soo bandhigaan way ku qasban yihiin ee banaanka iskeenaan. xidig weyn ma wataan, maxaa ula jeedaa Talyaaniga? macnaha ma ciyaartooy isku soo aruuris ahaa amase macnaha magac male ciyaartooydooda mid haddii loo fiiriyo? waxaan ula jeedaa xidigii la yaqiino oo sidii Baggio oo kale, Del oo kale, ninkii la dhihi jiray oo hadda ciyaaraha ka fadhiista oo macalinkan Juve hadda dhow oo kale Brandelli oo kale, Andrea Pirlo kale, iyo macnaha xilliga dadkaas soo maro kale iyo biriga Talyaaniga u dheelaya labay kale yihiin. macnaha waxaan kaala hadlaa waa taas ma iga ahan Talyaani macnaha xidiga biriga muhiim oo waaweyn ma wato, laakiin markii aad fiiriso qaab ahaantii hadda u dhisan yihiin Talyaani ahaan waa koox wada dhisan, isla guurayso, weerar isla qaadayso, islana badi karaan, macnaha guul walbana ka dhalaali karo. waa waxaan kaala hadlaa. ma fahamtay? dhegeystayaal, barnaamijkan intaas kusoo gabagabaynaynaa. sida ay nabadgelyo iskaga tegina isma dhaafnay barnaamijka loo xiisalay.